cabdulqaadir waa imaam araggala waxa uu u degdegayaa sidii uu u tujin lahaa salaada duhur oo foodan ugu soo haysa. ushan ayuu ku tukubaa mar uu taabaco iyo mar uu turunturoodaba kama daalo tegidda masaajidka. codkiisa oo aad u macaan, siiqada uu ku akhriyo qur-aanka iyo deganaanshaha uu ku hogaamiyo ragcadaha salaada ayay dad badani ku xasilaan. inaan kici weyno maahane masaajidka inaan u kufno u dhacno waajib waay. salaada aniga waxaan jecelahay qofka inaan tadarruc iyo khushuuc iyo fudaan mukhafafo inaan ka dhigaan jecelahay maahan ee aniga maaragta dadka kamana cilmi badni kamana aqoon badni. marka ilaahay ha jeclaada inta ay jeclaan waxa waa nin walaalkooda aan ahay. cabdulqaadir qadarta alle ayuu ku sabray. waxa uu xoogga saaray barashada diinta islaamka isagoo akhristay kutub fara badan, taasi oo dhaxal siisay in dad badan ay jeclaystaan tujintiisa, kuwaasi oo aan anigu ka mid ahay. keligii ayaa lugeeya, suuma haysto cid gacan qabata, danta ayaa bartay xeelad bilaa humaaga oo uu kaga gudbayo waddooyinka iyo luuqyada magaalada muqdisho oo uu halis badan kala kulmi karo. faraka ciyaarkii carruurnimo, legdin la isku xifaaleeyo iyo istuuriyeynta oo uu joogteeyey ayaa sabab u noqday inuu beelo labadiisa indhood. balse aniga indhaheyga waxaa ku waayey ilmaan ahay xilli tuuriyootan ahaan iska galnay. ilaahay maqaadiirtiis il gabaraa iga dhufatay, ilna nin wiilah iga dhuftay aan istuuriyaheennay. alxamdulilaahi indhahey marka labada indhoodba saasaa ku waayey. dhacdooyin murugo leh iyo dhibaatooyin daran ayuu ku qaabilay aragla'aanta. goor habeena god loo qoday in qashinka lagu gubo ayay ku guda dhaceen isaga iyo saaxiibkii. war aawdii uu dhahay waa ku dhacnay labadeeniiba si haddana waxaan ugu dhacnay dadaba oon fiicneen. godkii waana cariiriyey, waana dhibay. si aan uga baxno waa uqubina muddo saacad iyo saacad barkeeda annagoo ku jirnaa yaabanoon isleenna alleelehe ma ku dhima rabtiin maanta xabaal ma doontay inay noqoe. ciddii qodkii qodataya waxay soo biyo iyo qashin waxay inta soo qaadeen ay maageen ku shub godkii. marka gabadhii yaa nuunuudeennii iyo maaragtay nuuxnuuxsigeennii iyo warkeennii inta maqashay naxday qaylida. nin oo dariska ah wuxuu soo qaatay qoray. qoragii waa nagu kaleeb dhacday. waraanakiyaana la dilin aan leenahay. qoray caadi xabad ka dhaceeda oo soo qaatay. qoragii waa leeb dhacay. ninkan wuxuu yidhi ilaahay maqaadiirtiis meeshaan dhex bilbilaa. war waxaan dhaana jinni maahina insiyaan nahay, dadkaasaan nahay, war naga qalleeya, war naga leexda. waxa uu u baahan yahay inuu helo usha cad oo ah sumad caalami ah oo lagu aqoonsado dadka araggala, balse hadda kama muuqato sumad meel fog laga bidhaansan karo oo muujinaysa inuu aragga naafo ka yahay, taasi oo khatar gelisay dhowr jeer. jidka anoo ku socdo isla fiican oo waddada ii saxan tahay, luuq markaan ka soo leexdaan luuqii kaleetaan ku dhacay. nin odaya isku dhacnay. goor adiga fiid fiicanna waa toon isleeya alleele markaas dadka waa la kala gara karaa. ninkii waa xanaaqsanay kolley tabeefeeru ugu bilaab. waxaan idhi niyo howlaalow nin wax u jeeda maahay haydilin aan dhahay. igama uusa joojine adiga markuu 4 xabba ii galshiyaan iga tag, ilaahay aa kuu jeeday. ninkii waxaa ilaahay ka tibay god ilaahay meesha ku yaalla ilaahay ku dhaca. xaafadda waa iska aragtay derbiyada, qof walba derbigeeda waxay ka qodataa god qashin ka qodee. ninkii aniga ilaahay maqaadiirtiis intuu erjada kolley gadaal ii soo fiiray godkii ku dhacay. nin caawiya anaa haddana ugu horreeyey. anaa ka soo saaray. dib ushu calaamadee leedahay. calaamadaas waxa waaye indhoolada lagu gartaa. adiga hadda biliskeersa qofka markay soo socoto iskeersa lagu garaacaho qofka markaad ku dhacdo qof keligii socoto lama dhihi karo indhool aan ahay, cidka yeeleeda male. inta badan wakhtigiisa masaajidka ayuu ku qaataa oo shaqo ma hayo, waxaase guriga ku sugayaa carruur uu dhalay iyo qoyskiisa oo sabool ah, kuwaas oo uu fadhamadnaan kula laabanayo.
maqalkeyga iyo muuqaalkeyga gara karta aan kaalmo ka rabaa qof aanan kaalmo uga baahnayn ma jiro allihii islaamaan u baahanahay qofkii ma ii kaalmeedana alxamdulilaah waxa waaye qofkaan ii kaalmeyna alxamdulilah aniga waxa waaye guri kiraaha ku jira kiraa layga rabaa meel ma fadhiisan karo shaqo maanta la yaqaano oo ku toosanna uma soo kalaho waa diintaas iyo beedkaas ilaahay kaliya xaan u dhalmada maxamed muuse tarsan warbaahinta qaranka muqdisho